fiqi waa nin dadkii ku soo koray 91 garaadkiisu soo bilaabmay dagaalada sokeeye markay Soomaaliya ka bilaabmeen ummadna ka yaqaan reerkiisa dal xamar ka yaqaan dadna ka yaqaan inuu reerkiisa dawladnimada inay reerkiisa tahay ka yaqaan ayaan anigu shakhsiyan aanu aqaana midnimada u gaalkacayo ku midayn waayay fiqi aniga iga sheekeen maayo inuu waqooyiga iyo koonfurta midaynayo gaalkacayo waa deegaanku uu soo jeedo horta hamiday intuu midnimo Soomaaliyeed ka hadlayo waa ninka television-ka la soo fadhiisto qoriga qaato qalinka dhiga dad miis dagaal la sokeeyay in laga horiyo Soomaaliland ayuu koow ka yahay dadka maaragtay ku aflaga doonaya raba inay sameeyaan anigoo soo jeedo oo ka soo jeedo gobolladana in badan aan ka aamusnayn ixtiraam iyo wanaag baan ku wadnay dawladnimada u tudhabaan islahayn laakiin waxyaabaha qaar niyo ma dhageysan karaan aniguna shakhsi baan ay coaching baa la yiraahdaa edab darrada sideedaba lama qaato Soomaalinimadu ma aha inuu ka xigsado ummadda kale Soomaali ka xigsado farmaajo ama reexaan teamkii laha markii farmaajo lagu kacsanaa hormood buu ka hawaadogeed waa dadkii geela 1991 ku qorayay shalayto ugu dambeysay saacid markuu yimi isagoo wasiira waa ninkii laha nin dambe boorso yimid adminis waa nin daaroodo boorso sita inuu noogu yimaado Muqdisho noogu maamulay yeelimayno Soomaalinimadu waa wax la leeyahay wax reeraleey haba yaraatee ilama aha fiqi oo aniga saaxiibkaya inaan ku sii fogaado ma rabo laakiin xaqiiqiyan wuxuu yahay ya aragti ahaan halku taagan yahay inaanu ahayn shakhsi u qalma dawladnimada Soomaaliya u qalma inaanu ahayn baan ku sheegayaan ada issue aan ku sheegayaan waxa weey inta wasiirka gaashaaniga wali ma arag isagoo ka hadlaya ciidanka Soomaaliyeed tabaalaysan sidii maaragtay horumar loogu sameyn lahaa ama wax lagu qaabil lahaa adardan inuu afar nin oo meeshan joogo mucaarada uu soo aflagaadeeyay mooyee wasiir fiqina aan tilmaamaba dadka maaragtay kooga ka ah wasiir fiqina uu hormood ugu yahay mahmaha Soomaaliyeed baa sideedaba waxay tiraahdaa af xumo meel kuma gaarsiiso dadna way ka kaxaysaa wuxuu sheegay waxyaabo far waxa hadla dabcan wuxuu ka hadlaa midnimada iyo in midnimada ay u taagan yihiin maamulka hadda la sameeyay laascaanood ka dhisan bari meeshaasna laga difaacay intaas waxaan ahayn buu sheegaa walaalow ma rabo anigu inaan ama credit siiyo ama aan ku sii dheeraado fiqi cid walba waa ogtahay fiqi waa nin dadkii ku soo koray 91 garaadkiisu soo bilaabmay dagaalada sokeeye markay Soomaaliya ka bilaabmeen ummadna ka yaqaan reerkiisa dal xamar ka yaqaan dadna ka yaqaan inuu reerkiisa dawladnimada inay reerkiisa tahay ka yaqaan ayaan anigu shakhsiyan aanu aqaana midnimada u gaalkacayo ku midayn waayay fiqi aniga iga sheekeen maayo inuu waqooyiga iyo koonfurta midaynayo gaalkacayo waa deegaanku uu soo jeedo horta hamiday intuu midnimo Soomaaliyeed ka hadlayo koow laba waa ninka television-ka la soo fadhiisto qoriga qaato qalinka dhiga dad miis dagaal la sokeeyay in laga horiyo Soomaaliland ayuu koow ka yahay dadka maaragtay ku aflaga doonaya raba inay sameeyaan anigoo soo jeedo oo ka soo jeedo gobolladana in badan aan ka aamusnayn ixtiraam iyo wanaag baan ku wadnay dawladnimada u tudhabaan islahayn laakiin waxyaabaha qaar niyo ma dhageysan karaan aniguna shakhsi baan ay coaching baa la yiraahdaa edab darrada sideedaba lama qaato ma aha Soomaalinimadu ma aha inuu ka xigsado ummadda kale Soomaali ka xigsado farmaajo ama reexaan teamkii laha markii farmaajo lagu kacsanaa hormood buu ka hawaadogeed waa dadkii geela 1991 ku qorayay shalayto ugu dambeysay saacid markuu yimi isagoo wasiira waa ninkii laha nin dambe boorso yimid adminis waa nin daaroodo boorso sita inuu noogu yimaado Muqdisho noogu maamulay yeelimayno Soomaalinimadu waa wax la leeyahay wax reeraleey haba yaraatee ilama aha marka waxyaabahaas oo dhamo waxyaabaha sii fogeeya ummadda sii fogeeya waxaan anaga qaadan karana haba yaraatee ma waxa awoowayaashay ama adeeraday nidaamka ay ka dhidiyeen 1960 markay ku soo biirayeen maanta oo 2025 cidna horta laga yeeli maayo cidna ka yeelma reer Soomaaliland dadka deegaanka soo jeedana aflagaade iyo xumaan iyo in loo dhaqmo si oo aan ahayn si maaragtay ay ku jirto dawladnimo Soomaaliyeed ay ku jirto war anaga ma qaadano dhaqan baan u leenahay inaan qaadan asal baan inaan dadka aflagaadeyn lafteeda dhaqan baan u leenahay oo anigu ma rabo fiqi oo aniga saaxiibkaya inaan ku sii fogaado ma rabo laakiin xaqiiqiyan wuxuu yahay ya aragti ahaan halku taagan yahay inaanu ahayn shakhsi u qalma dawladnimada Soomaaliya u qalma inaanu ahayn baan ku sheegayaan ada issue aan ku sheegayaan waxa weey inta wasiirka gaashaaniga wali ma arag isagoo ka hadlaya ciidanka Soomaaliyeed tabaalaysan sidii maaragtay horumar loogu sameyn lahaa ama wax lagu qaabil lahaa adardan inuu afar nin oo meeshan joogo mucaarada
uu soo aflagaadeeyay mooyee marka waxyaabahaasi waxay ku tusayaan kalibarka qofku uu leeyahay iyo inaanay u baahnayn inaad la sii murantaba adeegga Dhammaysbaas waa sida durduraan go'ayn taasoo ka dhigan inuu yahay isku xidhaha joogtada ah ee aan hakadka lahayn xirmada toddobaadlaha adeegga Dhammaysbaas waxaa kugu dhan internet xawaarihiisa la hubo iyo ku hadlaan xadidnayn oo ay ku dheertahay IPTV Dhammaysbaas waa mid aan kala gool lahayn oo kuu fududaynaya inaad la xiriirto adduunka oo dhan ku shubo kaliya 4.25 senti kuna isticmaal internet iyo ku hadal muddo 7 waxaana ku dheer nashaad IPTV oo ah isku xidhaha madadaalada casriga uga shubay dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal afargees Dhammays xawaare sare isku halayn joogta iyo adeeg ka tarjumaya baahiyahaaga casriga